ka hor geeridii nebiga sallallahu calayhi wasallam 9 maalmood waxaa soo degtay aayaddii ugu dambaysay qur'aanka taasoo ah wattaquu yawman turjacuuna fiihi ila allah thumma tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun. nebiga sallallahu calayhi wasallam markii uga soo laabtay xajka waxaa ku bilowday xanuunkii, markaana wuxuu boqosho ugu tegey shuhadadii Uxud isagoo ku yidhi assalaamu calaykum shuhadadii Uxuday, adinkuna waad naga horaysaan, inaguna waannu idinka daba imaan doonnaa, aniguna insha allah waan idinka daba imaanayaa. 3 maalin ka hor geeridiisa waxaa ku soo darnaaday xanuunkii, waxaa qabtay qandho xoog leh. wuxuu yidhi ii soo kulmiya xaasaskayga. wuxuu isugu wacay dhammaantood keliya si uu u yidhaahdo miyay oggolaanaysaan in laygu dabiibo guriga Caaisha. markaana wuxuu joogay guriga hooye Maymuun radiyallahu canha, iyaguna way ka oggolaadeen. markaana waxaa garbaha qabtay saaxiibkiis Abuubakar iyo Fadli bin Cabbaas, lugaha nebigana dhulka ayay jiitamayeen xanuunka haya awgiis. saxaabada markay arkeen ayay naxeen, waxay isweydiiyeen maxaa ku dhacay rasuulka Alleh. dhammaantoodna waxay isugu yimaadeen masaajidka, waxayna bilaabeen inay ka hadlaan arrintaas. guryaha nebiga sallallahu calayhi wasallam waxay ku dheganaayeen masaajidka. nebiga ayaa maqlay codkooda. wuxuu yidhi maxaa dhacay? waxaa lagu yidhi adiga ayay kuu baqayaan rasuulkii Allow. wuxuu yidhi ikiciyaa. wuxuu damcay inuu kaco balse ma uusan awoodin. haddana mar kale ayuu isku dayay inuu koro mimbarka balse ma uusan awoodin. markaas ayuu caadi u istaagay, uu jeediyey khudbaddiisii caanka ahayd isagoo yidhi dadow, ballanteennu maaha adduunyo, ballanteennu waa xawdka agtiisa. dadow, wallaahi ma idinkaga cabsanayo faqri, laakiin waxaan idinkaga cabsanayaa inaad tartan u gashaan adduunka siday ugu tartameen dadkii idinka horreeyey, markaana idin halaagto siday u halaagtay iyaga. wuxuu sidoo kale yidhi dadow, alle uga baqa salaada, alle uga baqa salaada. wuxuu yidhi dadow, alle uga baqa dumarka, alle uga baqa dumarka. waxaan idinkala dardaarmayaa dumarka inay wanaajisaan. intaa kadib wuxuu yidhi waxaa jira addoon uu alle kala dooransiiyey adduunyada iyo waxa alle agtiisa yaallo. addoonkaasna wuxuu doortay waxa alle agtiisa yaallo, laakiin naftiisa ayuu ula jeeday, mana aysan fahmin ciidan Abuubakar ahayn. Abuubakarna wuu iska ooyey markaas. intaa kadib nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu u duceeyey ummaddiisa ducadiisii ugu dambaysay isagoo yidhi allaha idin dhowro, allaha idin gargaaro, allaha idin sugo, allaha idin xoojiyo, allaha idin xoojiyo, allaha idin xoojiyo. nebiga sallallahu calayhi wasallam waxaa u soo gashay gabadhiisa Faadumo. markii aragtay nebigu xanuunsan ayay iska oysay. wuxuu yidhi ii soo dhowow Faadumoy. markaana dhegta ayuu wax ugu sheegay, aad ayay u oysay. haddana mar kale ayuu wax u sheegay, markaas ayay qosashay. markuu dhintay nebiga sallallahu calayhi wasallam, Faadumo ayaa la weydiiyey. wuxuu u sheegay. waxay tiri markii hore wuxuu ii sheegay inuu caawa dhimanayo, markaas ayaan ooyey. markuu arkay inay ooyayo ayuu haddana igu yidhi adiga ayaa ah qofka ugu horreeya ehelkayga ee iga daba imaanaya. markaas ayaan qoslay. intaas kadib nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi dhammaantiin iska baxa, Caaishay adigana ii soo dhowow. markaana wuxuu ku seexday laabteeda, gacantiisa ayuu kor u qaaday isagoo yidhi bal irrafiiqu alaclaa, bal irrafiiqu alaclaa, bal irrafiiqu alaclaa. markaana waxaa u yimid oo dhanka madaxa ka soo maray malakumood oo ku yidhi ruuxdan wanaagsanay, ruuxdii Muxamed bin Cabdillaahi, u soo bax, raalli ahaansho xagga alle kaaga yimid iyo Rabbi raalli kaa ah oo aan ku caraysnayn. hooyo Caaisha waxay tidhi gacanta nebiga ayaa dhacday, madaxiisana laabteeda ayuu ku cuslaaday. waxaan ogaaday inuu dhintay, markaana ma aqoon waxaan sameeyo. waxaan u soo baxay masaajidka, waxaan dhahay wuu dhintay rasuulka Alleh, wuu dhintay rasuulka Alleh, wuu dhintay rasuulka Alleh, wuu dhintay rasuulka Alleh. markaana masaajidkii wuxuu isqabsaday ooyin.